السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعبد القادر أحمد محمود داعد. waxaan jeclaan lahaa halkan inaan xisaabtan aan ku fududeeyo ama aan maaragtay oga shaqeeyo. waxaan haysanaa 3x oo lagu daray 5 oo loo wada qaybiyay 7 waxay la mid tahay 2. sidaan u jeednaba inta 5 waaye, intana waa 3 waaye, intana 7 waaye, intana 2 waaye, laakiin x maxay u taagan tahay xisaab ma aha, laakiin dabcan number ayay u taagan tahay. marka muhiimadda waxay tahay numberka x ay u dhiganto in aan soo helno. haddaba sidaan kusoo heli karnaa? waxaan kusoo heli karnaa xisaabtan ayaan fududeynaynaa ama si kale ayaan u qoraynaa, waan soo yareynaynaa, kadibna waxaan soo helaynaa x waxa ay la mid tahay. haddaba aan sameyno qaabkaas. okay, maadaama xisaabtan ay sidaas tahay, waxaan ku fududeyn karnaa marka hore waa inaan ka takhalusno ama aan ka tagno 7dan. waxaan uga tegi karnaa in aan xisaabta labada dhinacba 7 ku dhufano, maxaa yeelay dhinacan wuxuu la mid yahay dhinacan, qaybtan waxay la mid tahay qaybtan. sidaas darteed qaybtan wixii aan u qaybino ama aan ku dhufano, isla sidoo kaleeto waa inaan qaybtana u qaybinaa ama aan ku dhufanaa ama aan ka jarnaa sidoo kaleeto. okay, maadaama muhiimadeena ay tahay 7dan inaan ka tagno, waxaan uga tegi karnaa oo kaliya inaan labada dhinacba 7 ku dhufano. sidaas darteed xisaabtan haddii aan 7 ku dhufano, micnaheedu waxay noqonaysaa 7dan ayaa baxaysa. haddii tan aan 7 ku dhufanana 14 ayay isku bedelaysaa. waana sameynaynaa inta waxaan leenahay lagu dhuftay 7. markaas darteed waxay noqonaysaa tanna way baxaysaa, markaas macnaha tan cancel ayay noqonaysaa maadaama 7 lagu dhuftay. waxaa noo soo haraysa 3x lagu daray 5 waxay la mid tahay 14. sidaas darteed weli x-tii macnaha ma noo soo cadaan waxay tahay, laakiin waxaan helnay xisaab hal line ah oo macnaha u qaybidii ayaa naga baxday, macnaha 7dii hoose ay ahayd way naga tagtay. okay, weli waxaan sameyn karnaa haddana 3x-ta ayaan soo go'doominaynaa. waxaan sameynaynaa 5tan ayaan bixinaynaa, 14kana waan sii yareynaynaa isaga laftarkiisa. maadaama intan ay isku qayb tahay, intana ay qayb tahay, labada qayb waxaan ka jaraynaa 5 si aan 5tan uga tagno. sidaas darteed -5 ayaan leenahay. markaas lamida waxay tahay inta waa sidii iska tahay, intana -5. sidaas darteed waxaa soo harayso weli waxaa soo haraysa labadan way isla baxeen. tanna 14 laga jaro 5 9 ayay noqonaysaa. markaas waxay noqonaysaa xisaabta 3x waxay la mid tahay 9. okay, hadda xisaabta waxay noqotay 2 qayb oo kaliya, qaybtan iyo qaybtan way soo fududaatay, intii dhexe waan ka bixinay. markaas waxaan sameyn karnaa ilaa hadda si aan x u helno, x keligeed ayaan go'doominaynaa, intana 3 ayaan u qaybinaynaa, intana 3. markaas waxaa noo soo hari doonta x. okay, loo qaybiyay 3, intana loo qaybiyay 3. waxaa noo soo hartay inta 3 3daas la baxay. x waxay la mid tahay 9 loo qaybiyay 3 oo ah 3. haddaba haddii aad rabtid inaad sii hubisid, waxaad sameyn kartaa 3dii ayaad ku bedelaysaa meesha x ku jirtay. markaas waxay noqonaysaa 3 lagu dhuftay 3 waa 9 lagu daray 5 waa 14 loo qaybiyay 7 waxay la mid tahay 2. xisaabteennana waxay ahayd 3x oo lagu daray 5 oo loo qaybiyay 7 waxay la mid tahay 2. sidaas darteed macnaha haddii aan sameyno 3 lagu dhuftay 3 waa 9 lagu daray 5 waa 14 loo qaybiyay 7 waxay noqonaysaa 2. aad ayaad mahadsantihiin. waxaan rajeynayaa inaan video kale soo gelin doono. asalaamu calaykum.